waxaan kaa rabnaa kitaabkii towraadka. cusayr ayaa tegey geed hoostii, kadibna wuxuu bilaabay inuu dib u qoro kitaabkii towraad ee lagu soo dejiyey nebi muuse calayhi salaam. markii uu dhammeeyey qoraalkii kitaabka ayuu gacanta ka saaray odayaashii. markaas ayay garowsadeen inuusan been sheegin oo uu yahay cusayrkii runta ahaa, wayna rumaysteen. muddo kadib cusayr ayaa xasuustay kitaab uu meel ku qariyey 100 sano ka hor inta uusan dhiman. wuxuu raadiyey inuu kitaabkaas soo saaro, wuuna soo helay. kadibna waxa uu barbar dhigay oo isku fiiriyey kitaabkii uu qoray iyo midkii uu 100 sano ka hor meel ku xaseeyey oo uu dib u soo saaray, balse waa isku mid. cusayr ayaa garowsaday inaan ilaahay u dilin oo keliya inuu tusiyo allah subxaanahu wa tacaala sida dadka uu u soo nooleeyo oo keliya, balse sidoo kalena loo dilay si uu u ilaaliyo kitaabka towraadka. dagaalada iyo burburka kadibna uu alle dib u soo nooleeyo, dib u soo saaray si uu dadka u baro kitaabkan towraadka. dabcan sidii caadada u ahayd reer bani israa'iil, waxay bilaabeen muddo yar kadib inay dhahaan cusayr waa inankii alle, iyo hadallo kale oo badan oo ay ku gaarsiiyeen cusayr calayhi salaam boos ka sarreeya bini'aadamka, uguna kufriyeen alle subxaanahu wa tacaala. intaas ayaan ku soo gunaanadeynaa qisadeennii cusayr inu kaga hadlaynay calayhi salaam.